السلام عليكم كسر هذا يوتيوب channel كيجا وأنا قابلنا سكون نقد وناكسنا أصحابتي إذا قرحت بدن سكون نقد وناكسنا وحيد رجعنا سيدا عنا وحافظنا قبلنا دمانتين بعد وحافظنا قبتين أنتي حنوسني لها عافية أنتي دبعتي سيلا دبعتي ذاك قاعدة ما أنتي محايدين سيدا ما أنتي وحايدين سيدا متحايدين سيدا وحبسب إنه أدون قدر درالي بصوبتي إن ريركي إسقابي iyo iska dhama gabdhihii nimanka shaqaysanaayay wax kasta la isku daraday gab la kala kiciyo marka maanta heestaan idin wada heestina kala doontina rajeynaya waxyaabo cusub daartina ay ku codsatiin hoosta igu soo wada qora insha Allah inaan idin soo suubiyaan isku dayaa waxaan leeyahay asxaabtayda cusub dhammaantiin oo iga timid dhinaca maal يسكي سود وهذا آدي هذا ما سنتين وحرجيني سيدا أمال هبي ماشي الوهيدا إن عنا هبي إنك قديقو الصومالي قلوا قلنا إن هبي إنك قديقو إن شاء الله سومرك حايد الله هاي سحبت هذا سود وهذا وحنا الله سود وهذا إن شاء الله قرقيني أجوكتين قرقيني أكماتين قرقيني لا أجوكتين سو مركوا سيداس aan guda galno heesta iyo wax aan wadno horta لافر موسيقى لافر اللي وقتهم يا سلطان سيرار كال عرق صور مين لافر اللي وقتهم أصير مين قرح بدن هيست قادوية هيست حيكون بلعبتي كبر كعر رئيسو من كذي أو كعر رئيسو أو وحلو صو شيء كليب ضبكي على قرح دار مفاد باسينكي horta taasaan beenahayn intii qof xun jiro oo qof xun intuu tago qofkan kale war soo sheegay kan kale war soo sheegay waxa way reer badan ma dhaqmayaan laakiin waxa fiicnaadeed inaad qof inuu sabab dhageysan ba sababta sanadkan ma jiro qof la isku aamino qof kasta wuxuu sheegtid wixii kale uu ka sii gudbinayaa soo marka waxa fiican wax kasta inaad privat ku haadaan in adiga le qofkaaga u sheegtid waxa jiro waxa sigida misanaki waxasna waan kala tagnade kala gooso meel cadeeyo way ma fahad laakiin waxa fiican labada qof inay si kasta wax ku xalin karaan ay isku dayaan kulay marka qof ka badbadato markay waxa labada qof ay labadooda wax ka badbataan way marka la kala tagaayo inta koor waxa way le nin naagtiisna heshiisna ma dagaalna ma soo marka waa sidaas heestaan waxay ka hadlaysaa nabiibka qofka oo dadka isku dirdiray maanta dhan gurigiisa imaanay markuu uu taga ninkii ogaado oo soo galaa hadda misna hadda rag iyo naagba war waa lagu sheegaa hadda saas la wada xigtaa wada
horta wiilii gabadha jiraayo maqaayaday fadhiyaan wiilkii gabadhii maqaayad soo waday xusraa maanta xaaskaaga mise saaxiibadaada waxay noqotaba kasoo faraxsii daydaa la soo aaday iska dhe sow naftooda inay qanciyaan ma fahamte maxayaa yimaaday gabadha xetar masquula aadaa aboohelo nabiib meeshaan ku taagay meeshuu kuu suray sidii tiirkii magaalada warkii kusoo dhuraatay dhiib waa soo buuxi ilaa waa shaydaan ogtiin shaydaan manaxe waa soo buuxi gabadhii waa timid leh boorsadii adduunkii la lahaada hiriririg waa baxday waana baxday guriga tagtay guriga oohin ku dhex baxday guriga dhex tagtay oohin iska qabsatay miskiin waa ka xuma كحرو taasana beeneen jacayl quwad leh maba liicaba ma fahanteen labada qof markay is aaminsan yihiin ayag isku kalsoon yihiin ayag isku faraxsan yihiin qofka wax kasta hadii loo soo sheego si kasta wax lagu dhaho qofkaas wax ma qaato sababta tahay wuxuu ogyahay qofkan meesha uu ka joogo laakiin qofka markay markeen oo camal aadan wax badan aad aqoon badan aad u lahayn oo kale wuxuu qof ku soo sheegay waa qaadanaysa qofka ma taqaan ma fahanteen laakiin marka qofka si fiican dabeecadiisa u baratid wuxuu nacab yaa ogaatid wuxuu jecel yaa ogaatid sumsan qofka marka saad isku dhex gashiin maaragtay oo saad isku barateena ka wada oo saad isku fahantiin hadii qof kasta wax ku soo sheegay ma qaadanaysid laakiin waxa inta qofku warka uu qaadanayo waxa inta oo waxyaabo la isku cusubiyo waxas laakiin inkastoo dad hore mar isqabeen wax badan isqabeen xataa war la iskaga keeno laakiin markaas waxa fiican inaa maaragtay aad qof dhanba dhageysanba qofkaaga kaliya dhageysatid wixii adig kula saxan leh aad samaysid laakiin qof wuxuu ku yiri aad qaadan intaas ay la qurux badan taasana beenayn jacayl quwad leh ma leeyo wiils inuu leeyahay ka yaabinina laakiin waxa leeyahay waxa way jacaylka aan quwad lahayn واو horta heesto wax saxay ka hadlaysaa hadii runta laga hadlo oo indhaha la iska duubin soo kala arag meesha lagu duubay sida loo duubay sida la isku soo dabariday waqal studio hormar u gaaray ha
واو كال أرق هذا كال أرق أقول سو مركب ما شاء الله سو waxaan ku dhahay sultan saraarna heestan uu ka fakaday boqolkiiba boqol soo marka insha Allah waxaan rajinaa hadaad videoga ka heshin subscribe ila isiin comment share like asxaabteeda cusub waxay leeyahay soo dhawaad marka